waa mar kale Yamaanka miidiya daawada qodobka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gabar wariye Muslim u dhalatay dalka Mareykanka una shaqeynaysay kanaal laga leeyahay Iran ayaa lagu xiray dalka Mareykanka. gabar wariye ku dhalatay dalka Mareykanka oo u shaqeynaysay TV laga leeyahay Iran qaybtiisa Ingiriiska la yiraahdo Press TV ayaa lagu xiray dalka Mareykanka. gabadhan magaceeda ayaa waxa la yiraahdaa Marse Hashe waxayna da'deedu tahay 59 waxayna diinta Islaamka ku soo biirtay 1979 waxayna u guurtay dalka Iran 2008. gabadhan ayaa usbuuc hore la soo dhaafay rabtay inay soo booqato qoyskeedii waxaana lagu qabtay garoonka la yiraahdo Saint Louis Airport. waxaana ka warbixinaysa saaxiibteed waxayna leedahay sida tan: markii ay soo gaartay Mareykanka ayaa la xiray hore uga maysan dhicin arrintan oo kale. Mareykanka waxay diyaaradeeda ku soo socotay Saint Louis waxaana hore u soo martay Washington DC. markii ay soo gaartay Washington DC ayaa xijaabka xoog looga qaaday waxaana u sheegtay inay tahay qof Muslim ah haweeney. waxay isticmaashay jaakad ay wadatay oo koofi lahayd waxayna saartay madaxa si uu u noqdo cover ama dabool guud sida uu ugu noqdo. haddana way ka qaadeen kadibna sawiro ayay ka qaadeen waxaana loo sheegay inay raashinkan cunto, balse waxay weydiisay raashinka inuu xalaal yahay iyo inuusan xalaal ahayn, balse su'aalaheeda loogama jawaabin. gabadheeda ayaa loo sheegay inay raashinka cunto ama ay iska dayso. Hussein ayaa ka hadlay xiritaanka hooyadii wuxuuna sheegay ilaa hadda inaysan wax fikir aysan ka haysanin, cid walbana ay weydiiyeen balse ilaa hadda aysan jawaab helin. daawade sidaa iyo nabadgelyo.